ما سنتهي إن شاء الله تعالى سائل كم حول يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن سلام يا شيخ إيو أحبابتك لا سلام كدب سؤال أن ودينا يا شيخ وحوية روح حنونسن أيا وحى كتري صونكي باكتري وحنا أوجتري حنون درتيس isaga aan wili soonkii gudin ama qaleenin ayuu soonkii kala yimid isagoo isla markaa heli kara waqti uu ku gudo soonkii laakiin ma uusan soo qaleenin maadaama soonkii kale soo galay soonkii hore ma in uu qaleeyaa lagu leeyahay mise fidiyo ayuu bixinayaa sheekha bal mas'aladaas naam mas'alada jawaabteeni horena way dhaxgashay haddaan dib u faahfaahino qofka hadduu mariid yahay faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin faciddatu min ayaamin ukhra ilaahay baa yiro wuu afuri karaa maradka marka haddii marad bogsashadii aan la rajaynin uu yahay soomkii addihiisiina wuu ka dhacayaa qadihiina wuu ka dhacayaa midna lagu yeelani maayo fidyo unbuu bixinayaa fidyadaasna maalin walba gaarkeedu u bixinayaayo tacjiil laba maalmo uusan gaarimo bixinaya maalin walba maalinteedu bixinaya نعم هذه لكن مرض لرجينا وياهي إنه إسك أفرا أبنان لا أداء كركيس أدمه لكن قضى لقدونه وقضينا إياه قضيه مركا هذه أوسن قضينين لا رمضان كدم بأكي ماده لا لو كلا قضية قف كان تأخير كأو تأخيري من لعذر با أو فرصة أكو قضية ويجر وبجرنا مسافر بوها يعني فرصة موسى أهلين هذا قضاء بالقدونه في دي الله مرة نعم هذه لكن إسقى غير معذورة وأنا عذر دار الهين وإسكدب إلى رمضان كلا كيماده وقضيني كرسات شكتي ما أنا أوصل قضين رمضان كلا كيمد قضاها معيسى وحالة دون يا فدية داسنا وحوية تا إلهي بقرآن كيس وكل شيء ويانا وكواجب وحونا بحين يا مطعامه بحين يا حديث دار قطني كذلك أسنا وكسو أرورتي قفك مريض كنوع عسو كالتو رمضان كالدو كوي مادو إنه بحينيو فدية دا أو بحينيو مركا قضيهنا ولا قدونيا فديدنا ولا قدونيا ما هاي فدية أو بحينيو قضاءنا لغول هين وحاول كان فدية أو بحين قضاءنا لغول هين وكي أنا بوكسيس الرجين إني مركا أهر وبصيب بحين كاسقا لكن كي مرض كبوكسدي وقضينا يا oo qada kaliya lagu leeyahay haduu sarwada kale ku soo galin haduu ku soo galo oo laakiin cudur daar ugu wacnaana qada kale lagu leeyahay hadii laakiin ramadan kale ku soo galo isagoo aanan cudur daar lahayn oo dibdhigaas ninkan uu sameeyay oo uu soomi karay qadihi miciisa waxa laga doonayaa fidyo inuu bixiyo wallahu a'lam ma sha Allah jazakumullahu khair sheekh saa'il kan wuxuu leeyahay su'aashii hore su'aashaani daba socotaa hal nin baa soo weydiiyay hal qof su'aasha labaad aan sheekh weydiinayo waxa weeye sheekh ninbaa waxaa jira ninbaa dhalay dhowr caruur ah xaaskiisana way kala tageen ninkuna ma shaqeeyo hanti kalena ma haysto oo caruurta qaarna waxaa haysta hooyadood qaarna ninka ayaa haysta oo dhalay marka caruurta qaybta hooyadood haysata ma lagu leeyahay zakatul fitriga inuu aabahood ka bixiyo ama hooyadood baa ka bixin karta maadaama ninka uusan waxba haysanin نعم horta nafaqatul qarib nafaqadu waxay ku waajibtaa zawjada nafaqadeeda way waajibtaa qariibkana nafaqadiisa way waajibtaa mamluuka waxa qofka uu mulkiyay nafaqadu way waajibtaa marka zawjada nafaqada ay kugu leedahay cayrnimo kaaga dhici mayso qofka hadduu xataa waxba uu isla waayo naagtu nafaqadu way ku leedahay maxaa yeelay iyada waxaa loo fasaxay inama ay ku sabarto ama hadayna ku sabri karin inay naashizana ayna ahayn isma kaninayso inay ka fasakhato maadaama baabka fasakha uu furan yahay iyada uu furan yahay xaqiisa ninka waxba fasax la siini maayo waa ku waajib sawa kana mu'siran aw mu'siran ama xoolaha ay yusan haynin nafaqada naagtu waa ku waajib laakiin qariibka waa faracay asalka weerta qariib hadaad maqasho nafaqa ay ku waajibayso waa faracay asal qofka wuxuu dhalayna way ku waajibtaa nafaqadooda wixii dhalayna nafaqadooda ku waajibtaa
marka nafaqada marka awlaad ah tartiib weeye awalan hooyaday aabbahay ku waajibaysaa awowgooday ku waajibaysaa hooyaday haddana ku waajibaysaa aabbaha hadduu waxayo nafaqada isagaa laga doonaya carruurta uu nafaqaynayo isagaa laga doonaya asalba zakaatu fidriga nafaqaday raacdaa qofka kolba nafaqada ay saaran tahay zakaatu fidriga yuu saaran yahay lidaalika ayaa zakaatu fidriga waxa la bixinayo uu yahay wixii ka faadil noqdo can mu'anatihi wa mu'anati ciyaalihi wa ahlihi leylata alciidi wa yowmaha marka qofkaa ninkaane haddii nafaqadii carruurtii uba waayo uu hayninba uusan haynin gabadhu ay nafaqada hayso oo xoolihii iyada ay leedahay xoolo ay hayso ayadaa nafaqada ay ku waajiba iyadaa nafaqaynaysaa haddii laakiin saad sheega ay kala tageen waa la midkii waalidnimadu tegi mayso iyada ilmihiina ay kala qaybsadeen kuwa isaga uu hayo isagaaba haya haddii uusan zakaatu fidrig wax uu ku bixiyo uusan haynin maba ku waajibinba way ka dhici way dhacaysaa nafaqada qariibka dayn ma noqoto nafaqada islaanta nafaqadeeda waa ku dayn hadduu qofka uusan bishan iyo bishii kale bisha uusan nafaqaynin hadhow waa dayn way ka qaadan kartaa haddii xataa ay sii daynsato way heli kartaa qaadiga dayn uu qaadi karaa laakiin nafaqatu qariib iyadoo dayn ma noqoto marka waalidkii aabbaha ah hadduusan waxba haynin sida nafaqaduba ay uga dhacayso ee horta zakaat fidrina uga dhacaya marka ciyaalka inta isaga uu hayay haddii aad leedahay isaga la rafaadayo iska haysta ha haysto zakaatu fidrigana hadduusan wax nafaqadoodii ka badan u hayn uba ka dhici inta iyada ay hayso ay islaanta carruurta dhashay ay hayso maadaama iyadu ay xoolo haysato nafaqadoodina waa ku waajib zakaatu fidrigiina wuu raacaya waa ku waajib iyada bixinaysaa nacam xataa kuwa kale ee odayga uu hayo hadduu isaga mucsir yahay waxba uusan haynin nafaqadooda iyadaa laga doonaya inay nafaqayso ama ha hayso iyadoo isaga hayo hayadu macno ma laha xadaanadu waa baab gaara yaa xadaanaynaya ilmaha yaa dhaqaalaynaya fiqiga baab dhan buu guntaya taas waa laga hadlaa marka nafaqaduna waa gaaro haddii kuwa xataa isaga uu hayo uu isaga nin mucsir uu yahay kasbi karinna xoolana uusan haynin kasabna uusan haynin iyadaa laga doonay inay hataa kuwaa nafaqayso zakaat fidriga labada iyadaa ka wada bixinaysaa والله أعلم. ما شاء الله شيخ شكرا أد ما سنتها إن شاء الله سؤال شكله وحيقول لك أنت هاي سيدة أنا جو صومن لبيت تبانك الظهر نمو مع عضيان كراه مسقوا بيسان كراه سائل كان ساس بقول لي يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم قفك صائم كا ما عضيان كرا بعد الزوال ما قبيسان كرا بعد الزوال سمعها وحوي هرتي صومك مكروهات بوليه سيدا مبطلات بوليه مكروهاتنا بوليه فوق هذه كتبتين متن يكون قرآن هدي قفك وصائم يهي بعد الزوال وعضيده وكراهيه حرامها وكراهيه سبب سنيه هدوسا إيمان تغير كيو زائدي ديجي وحلا ميدأ waxaylkii ka galgalay oo ka saarayo howlaha hadayna ku imaanin bacda zawaal hadii mar la gaaro inuu san cadayanin baa sunna maxaa yeelay waa xadiidkii saxiixa nabiga laga wari sallallahu alayhi wasallam la khalufa misaa'imi adyabu inda allahi min riixi lmisk la khalufa misaa'imi adyabu inda allahi min riixi lmisk fuqahadu waxay yidhaahdeen maadaama uu ka dhashay shay cibaado ah luunkaan ninka qofka saa'imkiisa fuulayo uu ka dhashay shay cibaado ah ilaahay agtiisana uu qiimaha ku leeyahay inaan la zuulinin baa fiican welina waa shay daahira weeyaan nijaaso ma aha waxay uga qiyaas qaadanayaan shahiidka dhiiggiisa ilaahay agtiisa adyabu cinda allahi min riixi lmiski isna shareecadu way xarimtay ninka shahiidka dhiiggiisa in laga dhaqo oo la mayro waa xaaraam ma bannaano marka waxay yidhaahdeen limaada waa wanaagga ilahay agtiisa uu ka leeyahay shaygaa isaga ah maadaama dhiig oo nijaaso ah in la dhaqo ay shareecadu xaaraanba ka soo qaaday liajli wanaagga ilahay agtii uu ku leeyahay kan oo aanan nijaasaba ahayn wanaaggii dhiigga shahiidka lagu sheegay wanaag lamidna lagu sheegay in la zuuliyo waa karaahiyo sunnadu siwaaga cadaygu fadaa'il fara badan buu leeyahay famaca dalika fadaa'ishiisii fadliga weyn ay yimid ayaa loo dibdhigayaa
ila ifdaar laga gaaro tawataas amma ghusliga miya qabayska isaga karaahiyaha sharci kuma soo aroorinin qofka sooma uu qabaysani karaa waxaana u daliil nabiga sallallahu alayhi wasallam في فتح مكة سفرتي سي فتح مكة نبي صلى الله عليه وسلم يسوى صائمة وآدنا أهر راضي أيوبي اسكو شوي مركا قفك صائم كا وفعل كي النبي صلى الله عليه وسلم وكراهي لما يكره مركا قفك صائم كا وقبيسني كراه قبيس كراهية معها لكن عضية شد بعد الزوال وكراهية لكن قبيسكو قبل الزوال بعد الزوال كراهية معها والله أعلم ما شاء الله جزاك الله خير إن شاء الله شيخ السائل كان وحول لي هاي شيخ وحدي وديسان صلاة التراويح ده يكون واجب كأجورج ما كنت كاني كراه أيضا إسلام مركز جماعة دي مساجد أو أي كجيران صلاة دي أيضا أن كعب صنايع أما أيضا لقى عب سقابه عذر فافة سيدا كورونا فيروس يوحي لمت كأه سياس أجل جد جورج ما كنت كاني كراه تفضل شيخ بسم الله الرحمن الرحيم وحاوي هرت وحان هذا يمد وواحد دنيا أن أد وبضني هذا كهر تاريخ ذا أما يرى ولي بان ليه كرنا أموسا دعين سيدا وايد عضي بعض المناطق إن أهرمنا عنه كلي كدعين مرض دعي وحلميدا حروب دعي دجالات دعي لكن واحد دنيا سانو عم قارده هذا دن وحلقي يابا إن أما جرين بأما أنا هذا أنا الدنيا أنا كور هيني marka arrinka marka haday saan noqotay adibadana ay cadeeyeen in maradka noocan ah maradkani uu yahay wax la isu gudbinayo taabashadii isu dhawaashadii isku neefsigii la isku gudbinay mar ay adibadana cadeeyeen adiba lagu kalsoon yahay u cadeeyeen waxa weeye maradka saa la isku gudbinayo makhuufkana ee dhibaatada keenayo si daacuunki oo kaleeto ah wuxuu la mid yahay kii uu nabiga ka hadlay sallallahu alayhi wasallam ee uu yiri hadii arda uu asiibo waba daacuun uu asiibo hagelina hadii arda aad joogtaan uu asiibona ha ka bixina marka saadarteeda marka hadii jamaacadii la tukanayo waa waajib malihin laakiin qofku u banaan tahay أعذار الجماعة جرو حيالا أعذار الجماعة لي هذا جرو وقفوا جماعة أوتي كرو تنكسي سهلا قاركودا مركا ويفرب فوق هذا واتريان وحكم إذا قفك يونين المريض اللي جوجو وأسوي هشاني أما سووا أخذ مينيو يسووا دروك بحوايي طريقي بو كعب سنيا مسجد كي بو كعب سنيا تهنا كواسي لم يتهاي مركا هدي مسجد كي ولي لا سيما قفك دوا يلي هاي ومرضك dadka looga sii cabsi badan yahay uu yahay looga cabsanayo aad looga cabsanayo uu yahay isagu wali cudur daarkiisu waa si zaid marka ala kulli xaal qofka in uu maradka dartiisa jamaacadii oo la tukanayo cabsi isaga gashay darteeda oo inuu nugul yahay buu og yahay ama si uu u cabsaday kalsoonidii baa halka la gaadhay jamaacadii oo la tukanayo iskaga haro haduu ka cabsanayo meesha waa banaan tahay marka ala kulli xaal من أعذار الجماعة ويان تراويح أهاتا يتي فرض كذا أهاتا وجماعة إنه كتخلوا فوق قبك وكهروا لأجل حنونك ليسجد بنا هدو باشا نفس سوق عبسنا يقدر تدو كهروا وواحد بنا ويان والله أعلم. ما شاء الله إن شاء الله تعالى شيخ سائل كان كلام حلية هاي وحنا لقبر جرتا سديدي 8 سنة صونك دب أيوكي هاي mar waliba markay soonto waa ay ku xanuunsanaysaa aad bayna u tabar daran tahay marka gaajadana ma u adkeysan karto sheekha ii weydiiya maxaa qofkaas oo kale ay sameyn kartaa qofka waxay sameynaysaa waqti aan sheegaynay hadii mar arrinka arrin la xaqiijiyo uu yahay ama ahalkeedii baaba tajriba lagu ogaaday ama tabiib baa saa u cadeeyay saas sheegteen waxa laga yaabaa inay tahay qof laba ogaadayba inay soonka uu maarta mar haday mashaqo soo gaarayso mashaqo daahira haday mar soo gaarayso qoftii ay xanuunsan tahay oo ayna kareynin taana la cadeeyay afurki waa u banaan hadii marka wax dabeeca u noqdayo inay ka caafimaado la rajaynayo uusan ahayn inta hadda la og yahay xaaladda ay marayso dacaan bay bixinaysaa waa inay iska afuraysaa
dacaan bay bixinaysaa may waayo maradku waxaa loo kala qaadayaa marad bogsashiisa la rajaynayo iyo ku aan rajaynaynin dhibka gabadha hayo haddii uu yahay dhib inay ka bogsato aanan la rajaynaynin hadduu yahay soomkii wuu ka dhacayaa adaa'an wa qadaa'an wuu ka dhici oo haddana adda u soom mayso soona qadayni maysee mud bay bixinaysaa haddii laakiin la rajaynayo inay un ka caafimaado way qadayn doontaa markii ilaahay caafiya laakiin way afuraysaa mar hadday saa ay u dhiban tahay marka calaa kulli xaal haddii qofta hadda saas ay dabeecad u noqotay oo loo arkayo in ay soomba soomi karin way hadday 18 sano taqriiban waxaa laga yahay 3 sano la soo dhaafay ay baaliq ahayd ama ay 4 sano baaliq ama ka badan ba ay baaliq ahayd haddii ay ku tabargashay dhiig marka intaaba hadday soo ogaadeen in ay soonkiiba kari la'dahay haddii qadihiisa inay kari karin baa laga yaabaa marka calaa kulli xaal haddii la ogaado inay soomi karin soomkii uu ka dhacayaa dacaan bayna bixinaysaa haddii inay qadayn karto oo la og yahay tartiib tartiib u qadayni kartona qadihii baa lagu leeyahay kolba xaaladeeda say tahay iyuu soonkuna noqonaya calaa kulli xaal wallahu aclam ما شاء الله شيخ خير الله سيو شيخ سائلكم وحول لي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ وان سلام يا سلام كدب وحن روا شيخ هنا ويديو سؤال كسابسن زكاة الفطر شيخ زكاة الفطر ده ما يجب حين كرا ولا الكي أنيجو أبو ده إن إسكب حيو هدو يجب حيو ولا الكي أنيجو أبو ده إن إسكب حيو واجب كي ما يجد عكرا زكاة الفطر qofka isaga horta ku waajibaysa mar hadduu qof baaliq yahay isaga ku waajibaysaa adigii ay kugu waajibtay inaad iska bixisaa la rabaa haddii aad xoolo weydo waxba aadan lahayna way kaa dhiciba nacam haddii laakiin adigoo xoolo leh ay kugu waajibtay uu qof kale kaa bixinahayo iskama bixini karo waa inaad u idintaa weeyaan maxaa yeele adigii lagugu lahaa idinkaada ayuu ku bixini karaa ka wakiil isagoo kaleeto ah haddii xoolahaada uu ku bixina waa inaad wakaalataa haddii uu xoolihiisa ku bixinhayona waa inaad intaad tiraad iga bixi oo saas kaaga bixiyo wey laakiin haddii adoon u idinin uu iska bixiyo maya asixi mayso biidnika ayuu ku bixini karaa waayo waa shay adee lagugu leeyahay cibaado maali awi adee lagugu leeyahay idinkaadu qofka kale ugu bixini karaa hadduusan adadanse u idnin maya asixi mayso haddaad faqiir tahay oo qofkana qariib uu yahay kii ay nafaqadiisa ku waajibtayna aaj tahay مثلا وورال باتاي زمينا او بوسا وحبنا والكان وي نينكان قفكا غدو او والد iyo walad aad dhashayna waa la waayay isaga nafaqadaadii ku waajibtay mariid baa tahay zamin qof yani naafa tahay meel un la macduur ah tahay saasay nafaqadaada ugu waajibtay he markaa zakaat fitriga waa lagu leeyahay way ku waajibaysaa laakiin hadii qof mustakfi ah isku filan ghani ah iska bixini karo aatay say su'aashay u eg tahay oo walaalka inuu ka bixiyo uu danco uu bixini karaa laakiin biidnika bacda idnika ayuu bixinaya wallahu a'lam ما شاء الله الشيخ جزاك الله خير شيخنا سائل كان كلو حول لي وحن سلام يا شيخة سلام كدب زكاة الفطر العقم لو بحين كرا أنغو هي سنة مذهب كشافعية وحوي أردس مسألة ومسألة جير تاجن صون كستنا تمادو وحوي عند مذهبنا لا مذهب كنغا مايا محايا له نسكي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أها يعني ما ساعا من تمر أو ساعا من شعير أي هرت ماشي ياله النبي كما سجنان بطاطة كما سجنان طعام وحانا نهين إن لوبحيو النبي كما سؤالين لا في حديث صحيح ولا في حديث ضعيف كما سؤالون صادرت هذا مركا مذهب كصحيح قوي كاوي ومذهب كنجا لكن وحاجرة إن العقل وبحيو إن أي سلف كسو أرورتي حسن البصري بي كسو أرورتي إمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى أبي يوسف مذهب الثور وي نلدي جرى أبو إسحاق السبيعي ركبضا أو فقهادي هريئة أرنكاسي وحوي يمالكية دقار كميدة وحيبنينيان إن العقل وبحيني كرو إن العقل وبحيني كرو ويبنينيان مذهب أبو حنيفة أو وضد بدن زمن كنا وحوي يسقو معتمد كيسو كاوي بقى إن العقل وبحيني كرو قيمة وبحيني كرو معاصرين تا وياهن دنبه رق بدن با أرنكا ضرورين إياه
nin a'imadii waaweyneed ee mucaasiriinta ahaa sayid axmed bin sadiiq alghumaari oo min a'imati ahli sunna waljamaaca ah kitaab buu alifay oo uu bixiyey taxqiiqu alaamaal fi jawaazi dafci zakaati alfitri bilmaal kitaabkaasi 32 wej ayuu ku soo aroorinayaa imaamkaasi oo uu ku banaynayo 32ka wej in lagu bixini karo lacag lagu bixini karo waana madhabka zaydiyada iyo rag fara badan ay qabaan madhab ahlulbayt weeye imaam shawkani masalada uu ka hadlaa isna taasuu rajaxaya marka rag badan oo mutaakhiriin haddaynu qaadanno waxaa weeye khaasatan zamanka hadda la joogo waxay leeyihin qofka faqiirka waxaaba laga yaabaa in طacaam xaaladdaa uusan u baahnayn oo haddii xataa aad siiso uu gadayo isagoo lacag doonayo oo xawaa'ij kaloo hayso darteeda uu lacag ugu baahan yahay marka saa darteeda waxaa weeye haddii qiimo lagu bixiyo rag waaweyn oo ajilada salafkiisa xasanulbasri uu ka mid yahay oo xaniife uu ka mid yahay waa madhab ay ku tageen waaye waa baatil la odhani maayo waana qofkii saa yeelo hadda loo diidi maayo laakiin haddii ay su-aashu tahay madhabkanaga shaaficiyada arrinkaa ma ogol yahay maya ma ogolo madhabkanaga ma ogolo laakiin haddii madaahibtaa loo kaco kaleeto hadda ninka aanu sheegayna idinkuwa taqaanaan sayid axmed saciid axmed bin sadiiq alghumaari waa nin mashhuuro la yaqaano weeyaan min a'imati almaalikiyana weeye marka kitaab dhan buu ka alifay oo u bixiyay taxqiiqu alaamaal fi jawaazi dafci zakaati alfitri bilmaal oo 32 wej uu ku soo aroorinayo ah uu ku caddaynaya in lagu bixini karo maal marka haddii la raaco culimmada iyo ragga salafka iyo khalaf kale haddii la raaco way bannaan tahay in qiimo lagu bixiyo laakiin madhabkanaga ma ogolo wallahu aclam إن شاء الله تعالى gabagabadii ayaan ku sii shaqeynaa barnaamijka إن شاء الله saailka ugu dambeeya sheekh wuxuu leeyahay qofka sooman haddii uu cuntada uu karinayo uu dhadhamiyo soonkiisa muxuu u dhibayaa mase dhadhamin karaa qof sooman inuu raashin dhadhamiyo إن شاء الله raashinka qofka saa'imka inuu dhadhamiyo waa karaahiyo wuu dhadhamin karaa oo xaaraam ma aha laakiin waa karaahiyo waxaa yeelay waxaa laga baqayaa in uu wax uun ku ordo sida qofka saa'imka in uu ku xeel dheeraado luqluqashada iyo sandaarashadaba loo karaahiyeystay liajli cabsi laga cabsan ama wax ku sabqaan ayaa kadalika inuu raashinkii dhadhamay idan ay karaahiye u tahay laakiin xaaraam ah hadduu se dhadhamiyo soonkiisa waa u jira haddayna waxba ku tegin hadduu dhadhamiyo soonkiisa waa u jiraa laakiin karaahiyo ku dhacay wallahu aclam su-aasha ugu dambeysa ee aan rabno sheekh inaan weydiino sheekh saa'ilkan wuxuu leeyahay waxaan salaamayaa sheekha marka koowaad waxaan weydiinayaa sheekha salaada taraawiixda ah 11 salaada taraawiixda ah 11 ma lagu soo gaabsan karaa sheekha su-aashaasana la weydiiyo insha allah waan ka soo yar hadaan la filayaa 11 taraawiix ma aha hadduu qofku 11 tukado watar buu tukay taraawiix ma uusan tukanin taraawiix ismigu waa inuu musamaha dabaqo weeye ismigu waa inuu musamaha waafaqo marka magacan loo bixiyey waxa iska leh waa salaada 20ka ah ayaa iska leh magacaas taraawiix lagu magacaabaya hadday 20 ka yaraato taraawiix lagu magacaabi maayo qofku wuu tukani karaa haddii thawaabkeedina wuu leeyahay laakiin taraawiix muusan tukanin kaas taraawiixdu waa tay saxaabaduna ku ijmaaceen fuqahaa'u al-arbacana ay isku raaceen ilaa qowlka mashhuurkeenu sheegnay imaam maalik laga warinayo mooyaane waa 20 ragcadood oo taraawiix ah 5 tarwiixana way leeyihiin waa in raaxaysi la helo fadhi la helo oo 3 gaaro la helo weeyaan marka calaa kulli xaal waxa taraawiix lagu magacaabo waxa weeye waa 20 ka ragco ama 3 ama 11 miya taraawiix ma salaad way tahay salaad u diidi may laakiin taraawiix ma aha taraawiix ma magaca qaadan mayso wallahu a'lam إن شاء الله تعالى waxaan barnaamijkii gabagabo noo joogaa insha allah waxaan markaan rabaa sheekha inuu kelmadiisa ugu dambeysa ee axibada dadka muslimiinta iyo dhammaan islaamka inuu kula dardaarmo kelmada ugu dambeysa insha allah tafadal sheekh naam dardaarankeenu waxaa weeye ilaahay khayrka ina waafajiyo waxaan isu dardaarmaynaa maadaama bishii barakaysan aynu ku jirno wixiiba rasuulkeena inoo dardaarmay oo ahaa in bishaan cibaadada iyo khayrka la badiyo oo lagu dadaalo
hadda waynu ognahay hadda masaajidii waa inaga xiran yihiin zamanka hadda aan ku jirno waa zamankii koronaha weeye zamankii koronahan ku jirnaa hadda sanadkan saa darteeda marka haddee ictikaafka biluhu fadliga badnaa buu ka mid yahay waxaa laga yaabaa in dadku in badan ay masaajida ictikaafaan ba ayna haysanin ilaahayse waa ka rajaynaya inuu tobanka dambe ilaahay inoo furo amase aakhirkii ilaahay inoo furo marka waxaynu isu dardaarmayna waxaa weeye khayrka in uusan naf iyo shaytaan ayna naga qaalib noqonin waayo shaytaanku nabi alay slam wuxuu yidhahday wasufidat ashayaatiin fuqahadu waxay leeyihiin waxa la xiray wuu soo fakani karaa marka inkastoo xadiidka nabiga uu ahaa falaa yakhlusuuna fiihi ilaa maa kaanuu yakhlusuuna fii gayri waxay usoo fakani jireen uma fakani karaan bisha ramadaan oo xadiidka uu caddaynayo ama laga qaadanayo inayna soo baxayninba laakiin naf baa horta kulley joogta meesha marka inay naga qaalib noqonin oo cibaadada aynu ku dadaalno baryada ilaahayna lagu dadaalo aafaadkan iyo masaa'ibtan jiro in ma aragta yacni ilaahay naga rafciyo caalamka o dhan ba ilahay ka rafciyo islaamka ilahay ka qaado dhihi mayno gaalana gaar ahaan ugu ducayni mayne maxaa yeele inta uu caalamka ku nool yahay bahalkan uu ku dhex jiro muslimka dhib buu qabaa muslimka maxaa yeele karantiilkiisii iyo dhibkiisii iyo marka ilaahay hanaga caafiyo islaamka allah ka caafiyo caalamkan allah ka caafiyo bishaan barakaysanna ilahay khayrkeeda hayna waafajiyo kaan baan isu dardaarmaynaa dadaalkeedana allah hayna waafajiyo kumanka xoreyn allah inugu daro laylatul qadarka allah hayna waafajiyo innagii waalidiinteenna iyo ahalkeenna iyo axbaabteenna dhammaanba ilahay na cafiyo وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبالله التوفيق والله أعلم. إن شاء الله تعالى waxaan rajeynayaa walaalaha inay aad iyo aad ay uga faa'iideysteen ama ay u fahmeen sheekheena Shariif Cabdullaahi Shariif Xasan masaa'iladii ayna soo weydiiyeen dadka axbaabta ah ee sheekhu uu sheekha nooga jawaabay waxaan u malaynayaa inay aad iyo aad uga faa'iideysteen waxaan ugu horreyn u mahadcelinayaa rabbi subxaanahu wa tacaala na waafajiyey beydbeydadka ilaahay ka mid ah inaan ku kulanno isla markaana aan kula kulanno sheekheena caalimka ah imaamka masjidu saxaaba Shariif Cabdullaahi Shariif Abubakar Shariif Xasan asigoo fursad aad iyo aad u qaali ah noo siiyey in dadka muslimiinta ah uu u faa'iideeyo marka xigta waxaan u mahadcelinayaa dhalinyarada daarul maxabba ee ka soo shaqaysay in muddaalo ah barnaamijkan qiimaha badan leh na gaarsiiyey inaan la kulanno mashaa'ikhda ugu waaweyn mashaa'ikhdeena Soomaaliyeed ee ugu waaweyn waddanka aanu joogno ee ah waddanka Kenya waxaan leeyahay dhalinyarada insha Allah aad iyo aad baad u mahadsantihiin intii ka soo shaqaysay intii soo diyaarisay iyo inta haddaba insha Allah barnaamijkan dhan walbaba ka shaqaynaysa waan u mahadcelinayaa marka saddexaad waxaan u mahadcelinayaa dadka axbaabta ah ee walaalaha naga ah ee islaamka ah ee kala jooga dunida daafaheeda waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan idinkaga mahadcelinayaa sida qiimaha badan ee asluubaysan ee aad su'aalaha soo weydiiseen mashaa'ikhdeena insha Allah waan idinkaga mahadcelinaynaa insha Allah tacaala mahadnaq kadib barnaamijkeenii oo uu maanta marti noogu ahaa Shariif Cabdullaahi Shariif Xasan maanta insha Allah intaasuu noogu egyahay barnaamijkeeni waa noo xiran yahay tan iyo intaan ku kulmi doono barnaamij kan oo kale ah waxaan idin leeyahay nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.